Sheekadii Guusha ee Ibraahim Al-Fiqi. Sheekada Guusha ee Ibraahim Al-Fiqi waa sheeko guul ah oo u qarantay in la sheego. Ibraahim Al-Fiqi waa nin u horay noloshiisa intii badnayd inuu dadka kale baro sida looga gudbo caqabadaha ka hor yimaada inta ay ku jiraan socdaalka ay guusha ku rabaan. Ibraahim Al-Fiqi wuxuu noloshiisa intii badnayd ku bixiyay sidii uu u faafin lahaa fikir iyo akhlaaq togan. Wuxuu u arkay sheekada noloshiisa inay tahay tusaalaha ugu fiican ee uu qof gaadhay caanimo ballaaran iyo lacag, isagoo kaliya aaminsanaa riyooyinkiisii ilaa ay dhab ka noqotay. Noloshii hore ee Ibraahim Al-Fiqi iyo sida uu heerkan ku soo gaadhay. Ibraahim Al-Fiqi noloshiisii hore waxay ahayd mid ka duwan nolosha dadka kale. Wuxuu ku dhashay dalka Masar sanadku markuu ahaa 1950. Wuxuu digriga jaamacadda ugu horreysay ka qaatay kulliyadda dalxiiska iyo hoteelada. Kadib qalinjebintiisii waxay sanadku markuu ahaa 1978 isaga iyo xaaskiisii u socdaaleen dalka Canada si ay u helaan nolol fiican. Markii uu yimid dalka Canada, dadkii uu la kulmay ee Canada joogay waxay u sheegeen inuu dalkiisa iskaga noqdo maadaama aanay waqtigaa waddanka ka jirin wax shaqo ah. Ibraahim Al-Fiqi lacagtii uu markii haystay waxay ahayd $1,000 oo kaliya. Dareenka xoogganina muu niyad jabin, balse Ibraahim wuxuu bilaabay inuu shaqo raadsado. Wuxuu galay wareysi shaqo mid ka mid ah hoteelada dalka, waxaana uu sheegay maamulihii hoteelku kuma habboonid shaqada hoteelada. Ibraahim wuxuu ka tegay halkii isagoo niyad jabsan, balse wuxuu go'aansaday inaanu quusan. 2 maalmood gudahood wuxuu helay 2 shaqo. Labada shaqo tii ugu fiicneyd waxay ahayd inuu xalo ama dhaqo saabaanka ama weelka cuntada lagu cuno mid ka mid ah hoteelada dalkaasi. Inkastoo shaqadaasi aan ahayn tan ugu fiican, haddana wuu aqbalay shaqadii isagoo ku adkaystay inuu socdaalkan ka soo bilaabo meel hoose ilaa uu ka gaadho meel sare. Ibraahim wuxuu si degdeg ah horumar uga sameeyay shaqadiisii, marba marka ka dambeysa wuu sii dillaacayay ilaa uu markii dambe noqday maamulihii hoteelka. Intaas kadib wuxuu ku guuleystay Ibraahim abaalmarinta maamulaha ugu wanaagsan Waqooyiga Ameerika. Intaa kadib haddana wuxuu ku noqday mid ka mid ah dhiirigeliyayaasha ugu fiican dalka Canada. Ibraahim wuxuu casho ku casuumay ninkii ugu horreeyay ee u diiday amase ka mas'uulka ah hoteelkii loo diiday markii uu shaqadoonka ahaa. Maxaynu ka baran karnaa sheekadan? Dadka guulaha gaadha wax muhiimada ma siiyaan diidmada. Ibraahim Al-Fiqi wuxuu ahaa takhasuskiisa hoteelada, aqoon badanna wuu u lahaa, balse markii ugu horreysay waxaa loo sheegay inaanu ku habboonayn ka shaqaynta hoteelada. Balse wuxuu ahaa qof aaminsan naftiisa, dhagna uma dhigin diidmada lagala hor yimid, ilaa uu markii dambe uu caddeeyay qofkii diidanaa qaladkiisa. Haddii aad rabto inaad noloshaada guul ka gaadho, waa inaad ilowdaa diidmooyinka, sababtoo ah badankood wax micno ma sameeyaan. Aamin naftaada. Sidee buu qof u sii wadan karaa socdaalkiisii isagoo la kulmaya diidmooyin badan haddana aan rajo dhigin? Dhammaan dadka guulaha gaadhay waxay si adag u aaminsanayeen naftooda. Taasi waa sababta diidmooyinka aanay u gilgilin kalsoonida ay ku qabaan naftooda.